moogtahay in saddexdan xayawaan aysan hooyadood arkayn weligood intay nool yihiin. midka ugu dambeeya ayaana in badan ka yaabin doona. 1. octopusku badanka waxay jeceshahay inay ku noolaato gunta hoose ee badda. midka dhidig ee octopuskuna waxay bannaan cidlo ah ku dhashaa ukumo badan. laakiin arrinka murugada leh ayaa waxay tahay in hooyadu ay gaajo u dhimanayso intay ilaalinayso ukumaheeda. 2. dabaqalooca. xayawaanka dabaqalooca hooyadu markay uur qaado ambaba hooyadu dhalayso waxaa dilaacay dhabarkeeda. ilmuhuna waxay bilaabi doonaan inay cunaan hooyadood oo waa hore dhimatay oo dhabarku dilaacay. iyaguna hore ay ugu sii ruqaansan doonaan nolosha siina noolaan doonaan muddo dheer. 3. diinbadeedka amba qubada. kolba sidaad u taqaana daawade, qubada ilmaheeda yari weligood ma arkayaan hooyadood iyaga dhashay. maxaa yeelay qubad waxay ukumaha ku dhashaa meel qallayl ah oo u dhow xeebta. markay dhasho kadibna way ka soo tagtaa iyadoo soo geli doonta biyaha. markay badda wakhti badan ku jirtana waxay iloobi doontaa halkay ukumaha ku dhashay. sidaas ayayna hooyada qubadu amba diinbadeedku ay ku waayi doontaa ilmaheedii ay jeclayd. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, xayawaanada aan soo sheegnay midkii ayaa kaa yaabiyey? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube-ka iyo facebookka profileka saarana aad subscribe dhahdo.